doorashadii ay ku soo bixi lahaayeen 3 xisbi oo dalkan yeeshay 10 sano soo socda ayaa la isu diyaarinayaa madaxweynaha taasaan ka wada hadalnay. Dr. Gaboose waxaad sheegtay inuu ka qayb galay komishiga doorashooyinka 2 kulan oo madaxtooyada ka dhacayna inuu ka qayb galay. Ma jira wax saluuga ama arrimaha doorashooyinka ay ku kala fikir doonaadeen madaxweynaha Soomaaliland oo kalifay inuu kulamada madaxweynaha ka qayb galo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo kooban oo ku wareysan doono gudoomiyaha koobaad ee urursadeedka barwaaqo Maarig Daljir ugu horeyn professor Maarig Daljir ku soo dhaweeyay MTV. Luqmaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda MTV waana dhawahay. Maarig mudooyinka ugu dambeeyay ururkiina barwaaqo xaaladaha dalka arrimaha laascaanood iyo si guud waxyaabihii dhacayay waad ka aamusteen dadkan waxay isweydiinayeen su'aalo ay kamid ahayd ururkii barwaaqo ma saaxadda siyaasadda ka baxeen ma doorashooyinka ururadan dhacayn oo ka qanceen bal waran wala Luqmaan dabcan dadku xaq bay u leeyihiin cidii ku jirta saaxadda siyaasadda damac kaga jiro hoggaanka dalka inay qabtaan inay dadku su'aalo ka keenaan isweydiin xaq bay u leeyihiin laakiin ururka barwaaqo hawl kasta oo siyaasadeed oo dalka ka taagneyd waxa uu ka qaatay qaybtiisa marka leeyahay qaybtiisa ka qaatay hadii tusaale ahaan aynu ka hadlayno arrintan laascaanood ururku waxa uu qayb ka ahaa kulamadii ugu dambeeyay ururadu ay kaga tashanayeen arrinta laascaanood iyo sidii talo looga geysan lahaa kulamadii dhex maray xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu hogaaminayo iyo ururada siyaasadda tiraba 2 jeer marka qayb baan muxuu ahaa dabcan ka ahayn hawlaha mawaaqifna waa ka soo saarnay qoraala hadaad xasuusato kulankii koobaad ee madaxweynaha la galnay waxa la soo saaray bayaan 7 qodob bayaanka 7 qodob ee soo saarnayna ururka siyaasadda barwaaqo qayb uu ka ahaa waxaana arrintaasi ahayd mowqifka maaragtay urur siyaasadka barwaaqo uu aaminsan yahay sidoo kalena ururada siyaasaddu ay aaminsan yihiin marka laga hadlayo colaadda gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ka socota kulamo dabcan ururada siyaasaddu ay la galeen komishiga doorashooyinka qaranka urur siyaasadka barwaaqo qayb uu ka ahaa marka hawl kasta oo siyaasadeed oo taagneyd dabcan qaybteedaan ku ahayn laakiin de macnaheedu ma aha in mar walba la taagnaado media iyo maxay ahayd saxaafadda oo mataqaanaa maalin walba aad ku jirto maxay ahayd mataqaanaa saaxadda saxaafadda aad ku jirto maalin walba microphone ka taagnaato siyaasadda de macnaheedu dabcan inta waa ka ballaaran yahay haddii aanu nahay urur siyaasadeedka barwaaqo waxaanu ku hawlanahay hawlahaygii caadiga ahaa waxaanu ka shaqaynaynaa sidii aanu barnaamij siyaasadeed oo ummadda aanu ka iibino aanu u qodax tiri lahayn oo aanu uga shaqayn lahayn taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo iyo ummadda reer Soomaaliland aanu uga kasban lahayn cod gaarsiin kara urur siyaasadeedka barwaaqo sidii uu uga mid noqon lahaa 3 xisbi qaran talada dalkana uu gaari lahaa hadii lahaydmo Dr. Maxamed Cabdi Gaboose waa gudoomiyaha ururkaaga oo adiguna aad ku-xigeenkiisa koobaad u tahay Maargow mudooyinka ugu dambeeyay kama soo muuqan kulamadii madaxweynaha Soomaaliland oo la qaadan ururada sidoo kale arrimaha siyaasadda iyo xaaladaha taagan oo ka hadli jirayna kama hadal isagoo dalka ku sugan dadka qaar waxay leeyihiin Dr. Gaboose wuxuu ka qancay ururkii barwaaqo oo booska waa banaynaya siyaasadda Soomaaliland dib uga fadhiisanaya ururadeeda inuu ka qayb galo isagoo ka qancay in doorasho urur la qabto arrinta maxaad xoogaal tahay maxaad nooga sheegi kartaa Luqmaano marka urur laga hadlayo siyaasadeed ama xisbi laga hadlayo ama hay'ad laga hadlayo waa koox dad oo isku tagay kooxda dadka ay isu tagayna dabcan hoggaan baa matala urur siyaasadeedka barwaaqo waxa uu leeyahay gudoomiye wuxuu leeyahay gudoomiye ku xigeenno waxa uu leeyahay mas'uuliyiin kale oo xilal ka haya marbana muxuu ahaa dabcan cidii waqti xaadirka munaasib ku ah hawsha taagan ayaa matashaa haddaan yar dib kuu celiyo markii aanu ku jirnay tartanka ururada ee aanu u soo baxaynay inaanu ka mid noqono ururada siyaasadda ee ka qayb galaya tartanka loo gelayo 3 xisbi qaran ee dalkan yeelan doono dabcan hawlgalkaasi wuxuu ka dhacay 6 gobolba hawlgalka 6 gobol ka dhacay ee aan ugu soo baxaynay inaanu ka mid noqono urur siyaasadeedada
gudoomiyaha urur siyaasadeedka barwaaqo waxa uu ka soo muuqday ama uu ka qayb galay hal gobol oo keliya waa gobolka Sanaag. dhammaanba 5 gobol ee kale waxa waday mas'uuliyiinta kale ee ururka ayaa hawshooda waday oo hogaaminayay oo qayb ka ahaa. taa macnaheedu waxa weeyaan annagu waxaanu nahay urur dabcan sal ballaaran ay ku jiraan dad maaragtay karti iyo awood u leh inay marba marxaladda taagan ay ururka ka saaraan. marka dabcan kalsooni bay ahayd gudoomiyuhu raggiisa ku qabo in iyagu ay maareyn karaan oo ay hogaamin karaan hawlihii baaxadda lahaa ee aanu ku soo baxaynay. marka sida aanu ururnimada ugu soo baxaynay aanu mararka qaarkood uga soo dhex muuqan ama aanu qayb uga ahayn ayaa maxay ahaydey kulamada lala gelaya ama madaxtooyada ama komishanka doorashooyinka ama cidii kale ee marba mataqaanaa lagala hadlayo hawl taagan aanay dabcan daruuri u ahayn muxuu ahaa inuu ka soo muuqdo. sharciyana marba dee ciddii maxay ahaydey mataqaanaa ama jaanis u haysa ama markaa ku habboon ayuunbaa dee muxuu ahaa ka qayb gasha. marka kulamadii madaxweynaha lala geliyey 2 kulan baa ugu dambeeyey. labada kulan baa ururku qayb ka ahaa. qaarkood anigaa joogay, qaarkood waxaa joogay gudoomiye ku-xigeenka labaad. maxay ahaydey shirkii ugu dambeeyey komishanka doorashooyinka qaranka lala galay gudoomiyaha muxuu ahaa namatalay oo goobjoog ka ahaa Dr. Gaboose. hadday noqoto dee mowqif maaragtay marxalad ama xaalad markaa taagnay laga qaatana urur siyaasadeedku uu ka qaatay oo aniga kuu sheegay. marka walaal arrimaha odhanaya doctorku malaha dib uga fadhiistay hawshii urur siyaasadeedka barwaaqo gebi ahaanba waa arrin iska dacaayad ah. waa arrin aan maaragtay saliya raatoona lahayn. runtiina annagu waxaanu aaminsanahay haddii aanu nahay urur siyaasadeedka barwaaqo in maanta marka laga hadlayo actoriska ama yacni dadka ku jira saxadda siyaasadda inaanu ka mid nahay dadka ugu miisaanka culus leh. urur siyaasadeedka barwaaqo wuxuu ka mid ahaa ururadii muujiyey awoodda iyo cududda markii ay ku soo baxayeen tartanka ururada. iminkana waxa uu ka mid yahay kuwa ay dadku rajada badan ay ka qabaan ee ay rajeynayaan inay talada dalka iyo hoggaanka dalka inay qabtaan. marka runtii waxa maxay ahaydey aan jecelahay inaan hoosta ka xariiqo rajada weyn ee dadka iyagu ay naga qabaan ayaanu annaguna ku hawlanahay sidii aanu ula iman lahayn barnaamij siyaasadeed oo ummadda aanu ka iibino. ururkuna shaqadiisii maaragtay caadiga ahayd ee maalinlaha ahayd ayuu si caadiya u wataa. barnaamij siyaasadeedkiibuu muxuu ahaa dabcan qabyo tirayaa, la tashiyo hoosuu wadaa. si caadiya waxaa noogu socda hawlaha iyagii. dhowaana insha allahu waxaanu ummadda usoo bandhigi doonaa barnaamij siyaasadeed ballaaran oo aanu ummadda kaga kasbanayno codkooda iyo kalsoonidooda. intaan barnaamij siyaasadeedkaas aan la gaadhinba dadki waxay leeyihiin mubaarigow xukuumadda culays badan baa saarmo dagaala ah culaysyo kala duwan baa ku furan. shirka ugu dambeeyey madaxweynuhu arrinta in doorashooyin la qabto ururada ayaa dadka qaar leeyihiin ayuu u sheegay ururada in aanay suuragal ahayn doorasho ururo la qabto oo doorasho madaxtooye la aado. maxamed xaashim mucaaradka buu la saftay. Gaboose waatano inkastood ka jawaabtay haddana aanu siyaasaddii kasoo muuqan. 2 gudoomiye oo ururo darafka bari ahaa way ka baxeen siyaasaddii Somaliland iyo ururadii. taas idinka ma idiin muuqataa oo ma jirtaa in madaxweynaha Somaliland idin sheegay in doorasho madaxtooye la aaday oo ururada la aadeen oo ururadii qanac taageen hadda? walaal marka laga hadlayo arrinta doorashada xisaabta ee ku soo bixi doona 3 xisbi iyo arrimaha doorashooyinka horta dalku xeerar buu leeyahay. xeerarka dalku leeyahay waxa ugu horeeya dastuurka, dadna waxa ka dhigma xeerar. talaabo kasta inuu qaadayno xeer baa haga kuma xidhnaa runtii rabitaanka qof uu leeyahay ama rabitaanka muxuu ahaa madaxweynaha. waxay ku xidhan tahay wixii xeerarku ay jideynayaan xeerarku ina farayaan. marka dooda muddada dheer taagneyd muddada dheer soo noqonaysay ahayd ma doorashada ururada dhacaysa mise xisaabta dhacaysa. waxaan u malaynayaa taada imka inaynu soo dhaafnay oo doodaas imka inaanay taagnayn. xisbiyo maanta u haysta laysan ama sharciyad u haysta inay doorasho ka qayb galaanna
dalkan maanta kama jiraan idinka laftigiina soo madhacay liisanka maxay ahaday anaga laysanka nala siiyey nuxurkiisu waxa weeye anaga laysanka nala siiyey nuxurkiisu waxa weeyaan inaanu kaga qayb galno tartanka xisaabta marka haddii muxuu ahaa dib u dhac ku yimaado oo farsamo ahaan ay u suurtogeli weydo annaga waxaa laysan naloo siiyey ka qaybgalka muxuu ahaa doorashada ay kusoo baxayaan saddexda xisbi marka anagu taasaanu mar walba u taagannahay laakiin xiblood soomaha ma dhacmaan walaal muxuu ahaa dabcan dee waqti buu sheegayaa muxuu ahaa sharcigu sheegayaa laakiin nuxurka muxuu ahaa shahaadadaas waxa weeye in aanu laysan u haysano oo laysan naloo siiyey inaanu doorashada axsaabta inaanu ka qayb galno luqmaanow waxaa dood sharci ahoo dadka qaarkood qabaan marka sharci yaqaanada muxuu ahaa perspectivekooda iyo aragtidooda la eegayo saddexda xisbi ee maanta jira laysankooda 10 sannadood buu ahaa wuxuu sharcigu jideynayaa in 6 bilood oo u dambeeya inay ka qayb galaan tartanka axsaabta ee ay ama laysanka ku cusboonaysiinayaan ama ay saacada kaga baxayaan haddii 10kii sano dhammaadeen sharciyad maaragtay u ogolaanaysa in laysanka loo cusboonaysiiyana aanay jirin jiritaankooda sharciba bay su-aali ka taagan tahay oo sharci yaqaanada qaarkood ay qabaan inay xataa xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan tartanka xisaabta iyo kale because jiritaanku waa shakhsiyad qaanuuniya marka walaal doorashadii ay ku soo bixi lahaayeen 3 xisbi oo dalkan iyo 15 sano soo socda ayaa la isu diyaarinayaa madaxweynaha taasaanu ka wada hadalnay meel uu madaxweynuhu ku sheegay doorasho madaxtooye dhacaysa oo waxa laga tanaasulayaa doorasho maaragtay ururna ama doorasho muxuu ahaa xisbiye ku soo baxayaan haba yaraatee ma jirto waa iska propaganda iyo muxuu ahaa dacaayad komishanka doorashooyinkuna dabcan iminka waxay ku hawlan yihiin tallaabooyin kala horeeya baa jira marka laga hadlayo qabsoomidda doorashooyinka tallaabada koowaad waxa weeyaan in la dhammaystiro diiwaangelinta codbixiyaasha maanta fayskii hore aynu kasoo gudubnay oo waxaa la qabtay mataqaanaa in diiwaangelintii la sameeyo wejiga labaadna waa in kaadh qaybintii la sameeyo si loo helo final list oo aad dadka ka qaybgelaya doorashooyinka soo socda intaa kadib baa laga filayaa in komishanka doorashooyinka qaranku dabcan hay-ad baa dee inooga mas-uulaa arrimaha doorashooyinka dowladda waxaa ku xidhan miisaaniyad iyo inay amniga doorashada sugto madaxweynuna wuxuu ballan qaaday inay labadaaba diyaar leeyihiin laakiin shaqada doorashooyinka iyo qabsoomistooda waxaa madax banaani u haysta komishanka doorashooyinka qaranka komishanka doorashooyinka qarankuna markaa hawsha diiwaangelinta ay dhammaystiraan ay kaadha ka qaybiyaan ayaynu ka filaynaa inay soo saaraan jadwalkii doorashooyinka iyo road mapkii ama dariiqii loo mareeyey arrimaha doorashooyinka dr gaboose waxaad sheegtay inuu ka qayb galay komishanka doorashooyinka 2 kulan oo madaxtooyada ka dhacay inaanu ka qayb galin ma jiraa wax saluuga ama arrimaha doorashooyinka ay ku kala fikir doonaadeen madaxweynaha somalilan oo kalifay inaanu kulamada madaxweynaha ka qayb galin walaal hortay madaxweynuhu dee xisbigu gudoomiye ka yahay la yidhaahdo kulmiye annaguna waxaanu nahay urur siyaasadeed la yidhahdo barwaaqo labadubana dee waxay ku tartameen dabcan saaxadda 3 xisbi ee dalkan yeelan doona ay kusoo bixi doonaan marka waxa weeyaan maxay ahaydey dee dadka tartamaya baanu ka mid nahay waxaaba yaraatee muxuu ahaa gudoomiyaha iyagu ama arrimaha siyaasaddu siday u socdaan uu saluug ka qabo ama madaxweynaha uu saluug ka qabana haba yaraatee muxuu ahaa walaal ma jirto howluhuna dabcan dee sidaan kuu sheegay waxay ku xidhan yihiin komishanka doorashooyinka qaranka urur ahaana kulamada dee qayb baanu ka ahayn oo anigii hore kuugu sheegay marka anagu walaal howlaha iyaga iyo shaqadayadii ayaanu si caadi ah ayaanu muxuu ahaa u wadanaa gudoomiyahayaguna waa nagu hogaaminayaa aad iyo aad badmadsan tahay daawadaan intaas waxaan kusoo afmeelaya waraysi kooban oo xafiiska MMTV ee magaalada Hargeysa stuudiyaashiisa mid kamid aanu kaga qabanaynay Mark Daljir oo ah gudoomiyaha koobaad ee warsaasaadka barwaaqo arrimaha dalka taagan iyo arrimo khuseeya ururka barwaaqana aan ku wareysanayay anigoo Luqmaan Maxamed Faaraxa Najiib iyo Shaam iyo guud ahaan MMTV waxaan ka tagnaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh